dhammaan baaqiyaadta hawada laga dhegaysanaysa waa mar kale iyo barnaamijkeeni caawiya caalamka qodobadaan idinku hayana waxaa ka mid a xamaro xaaladeedu allow sahal tahay dhaawaca dadka oo marka ay cisbitaaladii qaadi waayeen dhirta hoos yaalla meydka oo markay xabaalihii lala gaadhi waayey bannaanada kale lagu aasayo qulqulka dadka naftooda la baxsanaya oo u kala jahaystay jidadka waqooyi ee koonfur uga kala baxa magaalada muqdisho xaalada guud ee muqdisho waa sidee caawa iyo caalamka sidii aad warkaba ku maqlateen hordhe in idinku sheegay dagaalada magaalada muqdisho ayaa waxa ay galeen maalintii saddexaad iyada oo dadkuna ay naftooda ugala cararayaan hubka meesha ka dhacayo oo aad u culus warbixin arrintaasi ku saabsan ayaa waxaa magaalada jabuuti inooga soo diray wariyahayaga xasan bariise oo hadda jabuuti isagu ku sugan xasan sida ay BBC-da u sheegeen dad goobjoogayaal ahi waxa uu dagaalka maanta oo bilowday wax yar kadib saqri dhexe ee xalay ahaa kii ugu darnaa ilaa iyo 16 sano ee la soo dhaafay goortaasoo dadka reer muqdisho ay hurdada kaga soo salaleen gantaallada xeerda badan ee loo yaqaana BM-ka oo ay magaalada la dhaxayeen ciidamada Ethiopia ciidamada waxaa ka horjeeda dhalinyaro qabiile u abaabulan oo u badan dadka reer muqdisho kuwaasoo maanta maalintii saddexaad dagaal kulul kaga soo horjeeday ciidamada Ethiopia oo doonayay in ay magaalada ka samaystaan goobo cusub ama fariisimo cusub oo military goobjoogayaal ku sugan magaalada muqdisho waxay BBC-da u sheegeen inuu dagaalku ugu xeer badnaa deegaanada ku xeeran garoonkii muqdisho stadium deegaanka xamar jadiid xaafadda xarar yaalle xaafadda tawfiiq iyo suuq baxaad iyo gubta kuwaasoo dhammaantood ka agdhow garoonka muqdisho stadium ay ku sugnaayeen ciidamo Ethiopian ah oo la sheegay in ay halkaasi ku go'doonsanaayeen oo ciidamada Ethiopiana ay doonayeen in ay soo furtaan sidaas darteedna waxa ay deegaanadaasi oo dhamay marti u noqdeen madaafiic aanan loo meeldayin kuwaasoo ku habsanayay guryaha dadka shacabku degan yihiin goobjoogayaashu waxay kaloo BBC-da u sheegeen in goobaha ay ciidamadu isaga hor yimaadeen ay ahaayeen 2 ama 3 oo keliya laakiin ay madaafiicdu gaartay meelo aad u badan ilaa iyo hadda lama oga tirada dadka ee ku geeriyootay dagaalka maanta hase yeeshee wararka laga helayo dhinaca goobaha caafimaadka in ka badan 20 dhinteen in ka badan 80 kalena ay dhaawacyo soo gaareen kuwaasoo la dhigay isbitaalada Madiina Kaysanay Al-Hikma Xayaat iyo goobo kale waxayna tirada guud ahaan 3 maalmood ee la soo dhaafay gaaraysaa 350 qof oo dhaawacyo ah iyo 150 dhimasho ah sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka sidoo kale waxa iyana jira dhaawacyo ama dhimashooyin kale oo aanan laga awoodin in laga gaaro goobaha caafimaadka oo ku xanilan goobihii ay wax ku noqdeen halka kuwa geeriyoodayna la isaga aasayo goobo aanan qabuuro ahayn sidoo kale goobjooge ku sugan muqdisho ayaa BBC-da u sheegay in ay degaankooda oo keliya ku aaseen 7 meyd oo askar Ethiopian ah oo wax meesha ka qaadan la waayey sidaas darteedna caafimaadka deegaanka dartiisa ay u aaseen dhibaatada dhimashada iyo dhaawaca dadka rayidka soo gaaray waxaa weheliya barakax aad u weyn iyadoo qoys qaxayay oo weliba baabuur watay dhinaca degmada afgooya ay BBC-da u sheegeen in ay wadada 30 kiiloomitir oo keliya ku jireen ilaa iyo 4 saacadood taasoo muujinaysa baaxadda dadka qaxaya oo wadada oo dhan xiray iyadoo dadka qaxayana ay aad u badnaayeen ilaa iyo hadda ma jirto wax waanwaan ah amaba wada hadal u dhaxeeya labada dhinac ee isaya waa ciidamada Ethiopia ee dadka reer muqdisho lamana hayo wax yar ah oo ka soo baxay dawladda ku meel gaarka oo sheegta in ciidamada Ethiopia ay iyadu kaalinayeen waxay dawladda Ethiopia sheegtay in ay magaalada muqdisho ka qabsadeen dhowr goobood isla markaana dileen ilaa 200 oo qof oo ay ku tilmaameen inay ahaayeen kooxaha kacdoonka ka wada muqdisho sidoo kale waxaan weli la ogeyn inta uu dagaalkani sii socon doono iyo waxa ay natiijadiisu noqon doonto midna hase yeeshee ilaa iyo hadda waxa muuqda waxa weeye oo keliya dil dadka qaar ay xasuuq ku tilmaameen marka loo eego gantaallada BM-ka ee lagu garaacayo goobaha rayidku degan yihiin burbur weyn oo magaalada loo geysanayo iyo barakac weyn oo dadkii rayidka ahaa iyadoo uu welibana dagaalkii sii socdo xasan bariise BBC